إلهي بمحله مدحوينها دلك جمهورية الصومال مدن مسبح عبدي يوفتي هو جامين أيوه أيام أنت السعودية الحولات شغل كسو جاري مجال بربري حرونت قبل كساحل مدحوينها يوفتي سو كسو كعتمة عاصمة دلك جمهورية الصومال أنا هرجيسة
intii ay soo socdeen jidka u dhexeeya gobollada Maroodijeex iyo Saaxil waxay soo dhaweyn diiran kala kulmayeen dadweynaha deegaamada oo madaxweynaha iyo wafdigooda ku qaabilayay farxad iyo reyn madaxweynaha iyo waftigiisu markay soo gaareen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka ka degmada Berbera iyo bulshooyinka reer Berbera oo aanu kala harin soo dhaweynta madaxweynaha iyadoo ay xilli kulul ay muujinayeen jacaylka iyo wanaaga iyo kalsoonida ay ku qabaan madaxweynuhuna isagoo la qaybsanaya dareenkooda waxa uu socod luga ku dhexmaray gudaha magaalada Berbera oo ay shaariciyada magaalada tubnaayeen shacabka kala duwan ee magaalada Berbera booqashada kadib madaxweynuhu wuxuu booqday dekedda magaalada Berbera halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka dekedda iyo howlwadeennada kala duwan ee dekedda wuxuuna xariga ka jaray taag cusub oo casri ah oo ay soo iibsatay dekedda Berbera ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha iyo waftigiisu waxay kormeereen dhismaha dekedda cusub oo shaqadeedu ay si xawliya halkaas uga socoto waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka kan degmada Berbera bulshooyinka reer Berbera maamulka dekedaha Soomaaliland iyo guud ahaan shacabkii kala duwanaa ilaa saaka soo dhaweynta madaxweynaha u taagnaa madaxweynaha iyo waftigiisu waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ujeedada safarka madaxweynuhu waxay daaran tahay in uu xogogaal u noqdo xaaladda guud ee gobollada iyo degmooyinka dalka inuu dardar geliyo shaqooyinka kala duwan ee ka soconaya gobollada iyo degmooyinka dalka isla markaana inuu xaqiijiyo oo kormeero mashaariicda horumarineed ee gobollada iyo degmooyinka aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi